daawada halka aad naga daawanayso waa shabakada wararka Arabsiya News. Halkan waxaynu si joogto ah daawadayaasha qiimaha badan aynu la wadaagnaa warar iyo warbixino xiiso badan kuwaas oo ay daneynayaan dadka inagu xiran. Haddii aad ka mid tahay saaxiibada inagu cusub, waxaynu ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe-ka noo saarto si aad ula socoto wararkeena iyo warbixinadeena, muuqaalada xiisaha badan iyo sheekooyinka daason ee muhiimka u ah bulshada. Sidoo kale waxaynu u xog tabinaa dadka doonaya xogaha qarsoodiga inay helaan. Halkan ayaad si joogto ah aad inogala socon kartaan. waqtahay macmiil adeegyada cusub ay ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariga galbeed sanadkani cusub ee 2020 shirkadda bariga galbeed oo horeyba shacabka ku dhaqan geyiga uga barteen safar raaxo leh, adeeg hufan iyo sidoo kale ammaano lagu kalsoon yahay. magaalada Djibouti ee caasimada dalka Djibouti waxaa shalay si rasmi ah uga furmay shirkii ay lahaayeen gudiyada farsamada ah ee labada dhinac ee dowladda federaalka ah iyo Somaliland ku matalayay wadahadalada labada xukuumadood ee Muqdisho iyo Hargeysa. furitaanka shirkan waxaa joogay saddexda madaxweyne ee Djibouti, Soomaaliya iyo Somaliland. intaasi kadib ayaa la sheegay in shirka ay wada galayaan gudiyada farsamada iyadoona wada hadalka uu fududeynayo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf. wada hadalada ayaa socon doona ilaa waqti aan la cayimin oo ah ama heshiis lagu gaaro ama lagu kala tago. si kastaba Arabsiya News ayaa heshay magacyada xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ugu jira gudiga. magacyada xubnaha gudiga farsamada ku matalaya dhinaca Somaliland ayaa kala ah Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon, wasiirka arrimaha dibadda Somaliland; Maxamuud Xasan Saanjiin, wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska; Saciid Sulub Maxamed, wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga; Dr. Saacad Cali Shire, wasiirka horumarinta maaliyadda; Dr. Adna Aadan, ergeyga Somaliland ee wadahadalada; Danjire Cabdifataax Saciid Axmed, safiirka Somaliland u fadhiya Djibouti. qofka toddobaad ayaa ah Mubaarak Ismaaciil Taani, xogayaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi. 7 xubnood ee dhinaca dowladda matalaysa ayaa kala ah Cabdi Maxamed Sabriye, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka; Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka batroolka iyo kheyraadka; Xuseen Cilmi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya; Maxamed Daahir Afrax, gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ee fulinta iyo dib u eegista dastuurka; Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud, xeerlaaliyaha guud ee qaranka; Dr. Maryan Cariif Qaasim oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka; iyo sidoo kale qofka toddobaad ee xubnaha dhinaca dowladda ayaa ah Bilaal Maxamed Cusmaan, la taliyaha sare iyo wakiilka madaxweynaha ee arrimaha Geeska Afrika. beesha caalamka ee saaxiibada la ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay wada hadalka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu martigeliyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo sidoo kale uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. war-saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in kulankan uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka iyo kobaca isfahanka. sidoo kale beesha caalamka ayaa dhinacyada gudiyada farsamada ah ee ay magacaabeen labada dhinac ugu baaqay in ay kulamadooda ka soo saaraan natiijo wax ku ool ah oo miro dhal noqota.
ugu dambeyntii beesha caalamka ayaa sheegtay in si weyn ay usoo dhaweyneyso ballanqaadka ay sameeyeen labada hogaamiye Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi ee ah in la sii wadi doono wadahadalada. Midowga Yurub ayaa sidoo kale qoraal uu soo saaray oo ku soo dhaweeyay wadahadalka 14 bishan aynu ku guda jirno ee Juun ka furmay Djibouti, waxa ayna ku tilmaameen inuu yahay tallaabo muhiim ah oo rajo gelinaya shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa ku nool qaaradda Afrika oo dhan. xubnaha beesha caalamka ee warmurtiyeedkan soo saaray ayaa kala ah African Union Mission in Somalia, AMISOM, Belgium, Canada, China, Denmark, Ethiopia, European Union, Finland, France, Jarmalka iyo sidoo kale waxaa qayb ka ah dalalka soo saaray oo ku xusnaa war-saxaafadeedkan Italiya, Japan, Kenya, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Ingiriiska, Mareykanka iyo sidoo kale qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD.